بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وان سلام يا dadka Soomaaliyeed sharafta badan ee aanu Facebook saaxiibka ku nahay Soomaalinimada aanu isku jecelahay iyo dhamaan intii kale ee daawata fiidiyogan basi kaliya laaban wada salaamaya oo Soomaalinimo ku dheehan tahay sida aad ciwaanka ka aragtaan waxaan rabaa halkan inaan ka soo gudbiyo fariin ka timi madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo fariintaas oo ah fariin ku socota dadka taageerayaasha ah ee Soomaalinimada ku taageeray Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee adduunka dacaladiisa jooga bay fariintani ku socotaa wuxuuna madaxweynuhu ina soo faray dhammaanteen sida aad ogtihiin Soomaaliya maanta xaalad aad iyo aad u xun bay ku sugan tahay oo abaareed oo colaadeed oo nabadgelyo la'aaneed baa Soomaalidu maanta ay ku sugan tahay markaa madaxweynuhu wuxuu dadka Soomaaliyeed ee sharafta leh uu ka codsaday lacagaha faraha badan ee lagu bixinayo xafladaha iyo aroosyada haddii ilaahay inankiisa leeyahay meel walba macnaha dadka Soomaaliyeed ay abaabulka kaga jiraan lacagta faraha badan madaxweynuhu horta marka ugu horeysa uu ka mahad celiyay taageerada loo muujiyay si Soomaalinimo ku jirto oo kaliya laabo uga mahad celiyay mahadaas waxa weeye waa ka guddoonay madaxweynaha isaguna wuxuu inaga codsaday maadaama oo maanta dadkeennii abaara ka jiraan lacagta in lagu bixiyo dadka abaaraysan ee dhibaataysan ee Soomaaliyeed ee meel walba waxa weeye baqtigu xalaasha u yahay ee ku waran in lacagta lagu bixiyo oo lagu badbaadiyo noloshooda baa madaxweynuhu inaga soo codsaday hadda waxa weeye aan fariintan isgaarsiino waxa weeye dabaaldega iyo farxadda waynu dabaaldegaynaa laakiin waxa weeye waxa lacagta hoteelada iyo qarashaadka iyo lagu bixinayo waxa ka mudan inagoo dadka biyo iyo haddii ilaahay idinkiisa leeyahay siina iyo raashin u siina oo ku quudina baa aad iyo aad madaxweynuhu inooga codsaday codsiga madaxweynaha maadaama taageerayaashiisii aan nahay inaan ka aqbalno oo haddii ilaahay idinkiisa leeyahay waxa uu inaga codsaday aan samayno baan aad iyo aad u soo dhaweynayaa xafladaha hal la qabto laakiin sida ingiriiskaba xalayta laga sameeyay hadda waxa weeye xafladda meesha la isugu yimaado ha laga sameeyo fundraising oo abaaraha dhaqaale loogu ururinayo sidii dadka lagu caawin lahaa baan soo dhaweynaynaa waa arrin aad iyo aad u muhiima waxa weeye oo qof kasta oo Soomaaliya oo dhiig iyo uus leh macnaha uu soo dhaweynayo madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay sidaa wanaagsan ee uu inoola taliyay waa ku mahadsan yahay waana ka filaynay waxaa Soomaalidu tiraahdaa nima taqaana yaa tahay lama yaado hadda waxa weeye madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu dadka masaakiinta ah Soomaaliyeed uu macnaha u turo oo caawiyo oo ka naxo horena waynu uga aragnay haddana waynu ka filaynaa insha Allah bindillaahi kariim aad iyo aad baad mataqaanaa dadka faraha badan ee saaxiibada aanu nahay markiiba waxa weeye soo xaadiray fiidiyogan dhageysanaya aad iyo aad baan uga bogaadinayaa insha Allah fariintaana waxaan codsanayaa haddii ilaahay idmo ka timid madaxweynaheenna inaynu isgaarsiino waa fariin aad iyo aad u qaaliya oo $1 milyan ka qaalisan haddii ilaahay idinkiisa leeyahay fariinta aan isgaarsiino insha Allah saaxiibadana waxaan ka codsanayaa in la sheer gareeyo ciddii kale ee xataa toos loola hadli karana lala hadlo lacagaha faraha badan ee meel walba lagu daadinayo dadka biyaha loogu dhaamiyo raashin ha loo siiyo meelaha la isugu yimaadana fundraising ha laga sameeyo insha Allah dadkeenni maanta waxa weeye ceelo uma qodna ciidana uma maqna xaaladdu meel aad iyo aad u xun bay ka deganaysaa
hadda waxa weeye waa baadhi iyo waxaas inooma eka waxaa inoo eg dhiig joojin iyo isku hilba dagaalan baa inoo eg insha allah biidnillaahi kariim markaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa fideogana sii gudbiya soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha israacdo soomaaliya cadowgeedu mid muuqda iyo mid isqarinayaba ilaahay waxa weeye isagaa u jeeda haynaga qabto soomaaliya sharafteedii iyo karaaminadeedii iyo soomaalinimadeedii ay ku lahayd caalamka iyo geeska afrikaba ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inoo soo celiyo isagaa awooda ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkaa dhibaataysan ee abaaraha iyo gaajada iyo siraca iyo colaadda iyo welwelka uu hayo ee dhiiggeenniya soomaaliya oo dhan waxa weeye abaartaas waa saamaysay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob khayr qabo oo ay ku qaboobsadaan oo ku noolaadaan oo dhibaatada ay kaga baxaan oo beerahoodii iyo xoolahoodii iyo wax waliba caadi ugu soo noqdaan oo degdega baan ilaahay ka baryaynaa inuu siiyo idinkuna waxaan idinka codsanayaa saaxiibadayo qof lagu jira ilaahay baa oge in loo soo duceeyo dadka ilaahay loo baryo waxaan idinka codsanayaa saaxiibadayo inaad soomaalinimada taageertaan waxaan idinka codsanayaa soomaali in la tanaasulo waxa weeye qof kasta oo soomaaliya hadda waxa weeye ama reer kasta oo soomaaliyeed dhib buu tirsanayaa oo wuxuu leeyahay anaa dhib layga galay markaa haddii aan laysu garaabayn weliba gaar ahaan dadkeenna dibadda jooga ee waxa weeye waddamada la quruxsaday ee dadkii lahaa quruxsadeen dadka joogow waxaan idinka codsanayaa in dadkii dhulkii jooga ee dhibaataysan in haddii wixii la tari karana la taro qofkii aan wax tari karanna dhibaatada inuu ka daayo baan codsanayaa insha allah biidnillaahi kariim si soomaalinimo ku dheehan tahay iyo odaytinimo iyo daacadnimo iyo dhexdhexaadnimo baan idinka codsanayaa waxaan kale oo codsanayaa haddii ilaahay idmo dowladda maxamed cabdilaahi farmaajo waxa weeye in loo taageero oo dadka dhibkii haysta ee dhulkii jooga sidii uu uga saari lahaa in loogu taageero oo markiiba aan lala soo boodin mucaaradad taageerada waxa weeye aynu taageerno dowladda inaan taageernaan soo jeedinayaa insha allah biidnillaahi kariim si dadka dhibaatada iyo abaaraha iyo nabadgelyada iyo isqarxiska ay uga saarto baynu u taageeraynaa insha allah anaa naftayda ka bilaabaya hadda waxa weeye taageeradeennu markiiba inay mucaaradad isu beddeshana maaha waxa weeye waxa aynu taageeraynaa waa soomaalinimada iyo midnimada iyo horumarka dadkeennii weeye shakhsiga maaha qofku waxa weeye waa xumaan karaaba maxamed cabdilaahi farmaajo xataa iminka madaxweynaha cusub wuu xumaan karaa oo malaa'ig maaha wuu dembaabi karaa khalad buu geli karaa laakiin waxa weeye khaladkaas yaynan markiiba waxa weeye jaajgaraynin aan waqti siinna insha allah biidnillaahi kariim taageero aan siinna insha allah haddii ilaahay inankiisa leeyahay maxamed cabdilaahi farmaajo waxa weeye qabiil maaha waa nin soomaaliyeed waxaa ugu daran dadka kuwa is yidhaahda qabiil ku taageera isagoo maxamed cabdilaahi farmaajo uusan u ogeyn inay qabiil ku taageerayaan ama uusan ku jeclaanayn waaban ogahayba ku jeclaan maayo xataa haddaad is tidhaahda qabiil ku taageer maxamed cabdilaahi farmaajo waxa weeye kugu jeclaan maayo waa kugu nacayaad ogow kuguna taageeri maayo kuguna soo dhowaysan maayo markaa waxaad ogaataan maxamed cabdilaahi farmaajo ummadda soomaaliyeed baa dooratay ummadda soomaaliyeedna ma kala xigto isaguna kala xigsan maayo meel dhexaa aan isugu nimaadna insha allah biidnillaahi kariim haddii qabiil wax laysku taageeraa wax tarayo 27 sano inuu nin jeclaysi iyo qabiil jeclaysi iyo reer jeclaysi iyo aynu ku jirnay iyo qof aynu mataqaanaa ayna wax kale eegayna ku taageerayno waa qabiilka iyaga iyo waa reerka iyaga isagoo waxba ku tarayna waxba qofka aad qabiil ku taageertaa xataa waxa weeye waxba ku tari maayo isagoo unbaa waxa weeye dee guryana dhisanaya iskana qayilaya moogtay laakiin adiga ceella kuu qodi maayo iskuul kuu dhisi maayo caafimaad ku siin maayo wax alaala wuxuu ku taraya ma jirto ninkaa dadka wax taraya ee durbaba maanta bilaabay mushaharkii ciidamada bilaabay hadda waxa weeye berritana xeryaha qaxootiga iyo barakacayaasha iyo dadka suuqyada wadhan wuxu qabanaya iskuulla dhisaya caafimaad dhisaya haddaan soomaalinimo ku taageerna insha allah biidnillaahi kariim aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa dhegaysigiinna waa sidaa aan sheegay fariintaana ha la gudbiyo haddii lahayd insha allah
ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay ku socotaa lacagta baadhiga lagu bixinayo ee xafladaha lagu bixinayo ee dig iyo damta waxa weeye hoteelada lagu kiraynayo dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan biyo iyo ha loo siiyo raashin ha lagu quudiyo aad baan idin salaamayaa sida aad ii dhageysanaysaan saaxiibadaydaas oo dhan waa u jeedaa waxa weeye ilaahay ha idin jeclaado Soomaaliyana ha israacdo ha midowdo ha guulaysato cadowgeeduna ha jabo insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh